سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. عشركنا maanta wuxuu ka bilaabanhayaa aayadda 69 ee suurada Nisaa kamida. aayadka u horeeya labada aayadood sababta ay ku soo degeen waxa la wariyay nin Thawbaan la oran jiray asxaabta nabiga kamida ayaa nabiga u yimid alayhi salaatu wasalaam asagoo ay ka muuqanayso murug. markaasuu nabigu su'aalo yiri maxaa ku helay? markaasuu rasuulka Allah jacaylkaaga yaa aad ugu jira. markaan gurigayga joogo ayaan ku xusuusanayaa markaasay naftaydu kacaysaa ilaa aan ku arkana ma xasilayo. markaasaan waxaan xusuustay aakhiro. waxaan gartay in aakhiro darajadaadu ay sareynayso nabiyaalka macooda aad ahaanayso. aniguna haddaan jannada galo markaas darajadaada aanan ahaaneyn waxaan ka cabsaday markaa in aan ku arki waayo. saasuu markaa nabiga u sheegtay alayhi salaatu wasalaam. markaasay aayaddan soo degay. haddaba taa waxay na tusinaysaa asxaabta nabiga jacaylka nabiga ay jecel yihiin xadda ay ka gaareen ilaa qaarkood kolkii nabiga arki waayaan markay xusuustaan ay hiloobayaan ilaa ay ka arkaan naftooda ayna xasilaynin ilaa ay ka xusuusteen aakhiro sideebay muxuu adduunka waaba kana waad arkaysaane aakhiro ama arki weydaan oo sidaas darteed ay la murugoodaan. marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala ومن يطع الله الله قفكي أطيعه والرسول رسولك أطيعه فأولئك كوا مع الذين كوي بمعود أهانيان أنعم الله إلهي أنعمي عليهم كركود من النبيين النبياشيئة والصديقين هم بدنياشيئة والشهداء كوي شهددها والصالحين كوي صوصبناء. إلهي وحوليه سبحانه وتعالى قفكي الله أطيعه رسولك سأطيعه وحي علي رسولك سو أي فران فرطومة وحي أي كريبان كهرة كواس أطيعدا لغهلي وحي معود أهان هيانو يلجر هيان كوي إلهي أنعمي النبياشيئة rum badanayaashii nabiyaalka rumeeyeen ilaahay rumeeyeen runta ku xil dheeraadeen sida Abu Bakr Siddiq oo kala kuwaasi macooda ahaan haya. shuhadadii ku dhinteen dagaalka cadawga difaaciisa xaq ay ka difaacayaan kuwii sidaas ku dhinteen shuhadada ahaa macooda ahaan haya. kuwaas heer sare weeyaan. والصالحين كوا صوصوبا ونواناكسنا معوضي أهانيا. طبعا بشارة ويان ضدك مؤمنين تا إلهي أديعه يا رسول كيسا أديعه هي بشارة الله بشارين هيو هير كودين وصرين هي آخر إن أي إسلجر هيان ضدك ونواناكسنا نبي وكير صلى الله عليه وسلم قفكو وحو لجر هيا معيس أهانيا كان أجعله المرء مع من أحب
qofku wuxuu miciis ahaan hayaa oo la jiri doonaa kan uu jecel yahay marka qofku marka waa inuu ka fiirsadaa waxa uu jeclaan hayo iyo sababta uu jeclaan hayo waxasuna ulaa'ika kuwaasa wanaagsanaadeen rafiiqan xagga rafiiqnimada la jiridda iyo la rafiiqnimada la saaxiibnimada lala saaxiibo kuwaasa ku wanaagsan nabiyaalka iyo run badanayaashaas iyo shuhadada iyo sulaxadaas la jiridda waa ku wanaagsan yihiin baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala haddaba tirtirsiis iyo bishaara ku sugan dadka mu'miniinta ah naftooda muxuu lagu tirtirsiinayo daacada iyo khayraadka si ay u ahaadaan kuwa wanaagsan macooda aakhira markii la gaaro ذلك كاسنا الفضل فضل وي من الله إلى حجيس أحد أرنكاس أو مركاس قفك إلهي رسولك سعداعة درجة أي قارسيني سئنو اللجره تدكي ونوناكسنا نبياشي يا صديقين تي شهددي يا صالحين تي كا وفضل ويان ليراتسين حق الله ويان وكفى بالله إلهي باكفلا عليما أقالك مدوح أقاده الله كفلا وإلهي هو أجيهاي أضيغداس كي داعت كتاي يا كي داعت كاهي كان إلهي درت أنيسن يا كان أنيسنين سكر أنيسن إلهي هو أجيهاي وقال كيساس أيا إلهي قفل بقوة بالمرن هي